ayada oo nin aana la garanaynin uu gaari kula dhex socdo saxaraha, laakiin hal mar gaariga ayaa ka halaabaya, wuxuuna ka soo deganayaa isagoo ordaayo, wuxuuna soo qaadanayaa boorsadiisa aadka u cuslayd. Halkaasna wuxuu ka qodayaa god aad u yar, boorsadiisa ayuu gelinayaa wuuna ku duugayaa, wuxuuna ku calaamaysanayaa dhowr dhagax. Intaas kadib wuxuu tegayaa gaarigiisa. Booliska ayaa imaanaya wayna qabanayaan, xabsi ayaana la gelinayaa, kadibna wuu ka soo baxayaa. Ninkii aanan la garanaynina taksi ayuu soo qaadanayaa, waxa uuna imaanyaa meesha uu ugu tegay boorsada, laakiin wuu naxayaa, waxa uu arkayaa dadka aaminsan khuraafaadka. Ninkii aanan la garanayn marka uu imaado buurta fiinkeeda, waxa uu weynayaa meesha uu calaamadaystay, magaalada ayuuna degayaa, waxa uuna helayaa hotel iska basiid ah. Ninka hotelka joogo waxa uu akhrisanayay quraan. Ninka aanan la garanayn waxa uu bilaabay inuu qayliyo, isagana wuxuu iska akhrisanayaa quranka. Markii dambena uu ducaystay, laakiin ninka kale wuu xanaaqayaa. Kadib markuu dhammaystay, ninkii hotelka joogay ayaa weydiinaya waxa uu rabo. Ninka waxa uu dhayaa, waxaan rabaa qol. Waxaa lagu dhahayaa waxaad keentaa 160 dirham. Nin magaalada degan oo ag taagnaa ayaa ka dhiibaya lacagta laga rabay. Wuxuu u mahadnaqayaa ninka, waxa uuna aadayaa qolkiisa, laakiin isla ninkii lacagta ka dhiibay ayaa u imaanaya, wuxuuna dhahayaa ma jiran tahay. Ninkii aanan la aqoon ayaa dhahaya, aniga waan caafimaad qabaa. Ninkii lacagta ka dhiibayna waxa uu ku dhahayaa, dadka magaalada oo dhan waxay imaadaan halkan si ay iskugu daaweeyaan. Ninkii aanan la aqoon waxa uu dhahayaa, waxaan u imaaday halkan inaan wax baaro mooyane wax kale uma imaanin. Ninkii aanan la aqoonin wuxuu soo galayaa qolkiisa wuuna fiirfiirsanayaa. Markuu daaqada furtana, wuxuu arkayaa nin la dhaho Khalid oo la hadlayo wiil uu dhalay Ibraahim, wuxuuna ku dhahayaa hadiyadan waxaad siisaa aabbaha. Nin kale aanan la aqoonin ayaa imaanaya magaalada, wuxuuna tegayaa isbitaalka saxda ah ee magaalada. Iridana waxaa ka furaya kalkaaliyaha, waxa uuna dhahayaa isbitaalkan ma shaqaynayo maadaama dhakhtarka cusub uusan imaan. Ninkana wuxuu dhahayaa, aniga ayaa ah dhakhtarka. Gudaha ayuuna soo gelinayaa, wuxuuna tusinayaa xafiiskiisa. Berito ayaan shaqada bilaabaynaa, ayuu ku dhahayaa. Meesha khuraafaadka dadka lagu daaweeyo waxaan arkaynaa tuug rabo inuu xado lacagta dadka meesha ay dhigaan dadka rabo in la daaweeyo. Iskaana waxa uu arkayaa eyga iyo waardiyaha oo meesha fadhiyo, wuuna cabsanaya. Dhagax ayuu ku soo tuuraya si uu mashquuliyo. Si dhaqso ah ayuu bilaabaya inuu u gurubsado shilimada. Hal mar ayaa ninkii aanan la aqoon ka soo muuqanaya gadaashiisa, waxa uuna rabay inuu radsado boorsadiisa ka luntay. Askarigii ayaa meesha imaanaya, waxa uuna dilayaa ninkii lacagta xadayay. Ninkii aanan la aqoon wuxuu go'aansanayaa inuu iska laabto oo maalin kale uu raadsado. Subaxii marka la gaaro, askarigii iyo eygiisa waxay ku soo laabanayaan magaalada. Halkaasna wuxuu ugu tegayaa wiilkiisa oo jiifa, wuuna kicinayaa si uu u aado shaqada. Miiskana waxaa saarnayd cunto. Wiilkana wuxuu bilaabayaa inuu gacmaha la galo, laakiin wuu ka diidayaa. Kadibna sandwich ayuu soo qaadanayaa, wuxuu gelinayaa hilib. Wuxuu leeyahay, orod sii eyga, xalay oo dhan wax muusan cunin. Waad fiicnaan lahayd in sida eyga oo kale aad u shaqayso. Wiilkiisana waxa uu soo dirayaa bilaa cunto, waxa uuna xoolaha ugu ilaalinayaa saxaraha. Xoogaa yar kadib, waxaa isbitaalka furaya kalkaaliyaha. Dhakhtarkana wuxuu ka codsanayaa inuu soo geliyo dadka bukaanada ah. Islaantii ugu horreysay ayaa soo galayso, waxayna bilaabaysaa inay ka sheegato madax xanuun. Dhakhtarkan waxa uu dhahayaa ilaa imise ayuu ku hayaa. Ayada waxay dhahaysaa ilaa iyo 20 sano. Dhakhtarkana waxa uu ogaanaya inuu yahay hargab caadi ah. Waxaa imaanaya kalkaaliyaha wuxuuna siinaya daawo. Intaas kadib waxaa soo galaya bukaano dumar ah oo aad u badan oo aanan ka sheeganaynin waxba. Kalkaaliyahana waxa uu siinayaa daawooyinka yiilay agtiisa oo dhan. Dhakhtarkana wuu xanaaqaya, wuxuuna imaanaya meesha dadka ay ku sugaan. Waxa uuna arkayaa inay wada yihiin dumar. Intaas kadib, dhakhtarka marka uu weydiiyo kalkaaliyaha, ma jiraan miyaa dad la daaweeyo oo nin ah? Waxa uu ugu jawaabayaa ayaga oo dhan way jiran yihiin, laakiinse waxay jecel yihiin inay aadaan sarta ninka aanan la aqoonin ee khuraafaadka dadka ku daaweeyo. Dhakhtarkana wuxuu weydiinayaa, ma caafimaadan markay tagaan halkaas? Kalkaaliyaha wuxuu dhahayaa mararka qaar waxay aaminaan inay caafimaadeen, mararna waa ay jirnaadaan. Waxaan badanaa aad dumarka, waxayna u arkaan sartaas dheer meel ay ku dalxiisi karaan oo keliya. Dhakhtarkana waxa uu bilaabayaa inuu niyad jabo, waayo waxa uu filanayay inuu noqdo dhakhtarka ugu fiican magaaladan uuna lacag ka sameeyo.
wuxuuna fahmayaa in khuraafaadka ay aad u saamaysay magaaladan, sidaa darteedna dadka aysan aaminsanayn dhakhaatiirta caadiga ah. Ninkii aanan la aqoonin ayaa imaanaya meel timo jare ah. Halkaasna waxa uu ku arkayaa ninkii lacagta hoteelka ka dhiibay iyo saaxiibadiisa. Ninkii aanan la aqoon timaha in loo jaro ayaa la bilaabayaa. Timo jarahana wuxuu weydiinayaa wuxuu u imaaday magaalada. Waxa uuna dhahaya, waxaan u imaaday inaan baaritaano ku sameeyo dhagaxaanta yaalo meeshan iyo dhulka dabeecadiisa. Dadkii ayaa ku qoslaya, waxayna leeyihiin, dhulkan ma lahan waxaan dhagaxaan ka ahayn. Xoogaa yar kadib waxaa imaanaya ninkii waardiyaha ka ahaa sarta. Waxa uuna bilaabayaa inuu sheego hadal been ah oo ka mid ah inuu xiray tuug weyn asaga iyo eygiisa. Ninkii aanan la aqoon wuxuu la yaabayaa beenta uu maqlayo. Ninkii aanan la aqoon wuxuu isku fiirinayaa miraayada, laakiin wuxuu arkayaa in kareenka loo mariyey uu ku sababay xasaasiyad. Xoogaa yar kadibna wuxuu maqlayaa ninka timajaraha oo ku dhahaya waardiyaha, waxaan kugu jarayaa kareen ka fiican midkaan, maadaama aad tahay geesigeenna. Ninkii aanan la aqoon wuxuu ka soo baxayaa meesha isagoo xanaaqsan. Intaas kadibna wuxuu wacanayaa saaxiibkiisa, wuxuuna dhahayaa, waxaan kugu baahanahay si daruuri ah. Habeenkiina waxa uu imaanaya ninka caawiyihiisa ahaa ee xabsiga kula jiray. Waxa uuna u sheegayaa meesha ay ka jirto lacagta. Caawiyihiisa ayaa aadaya meesha ay taalay lacagta. Ninkii aanan la aqoon waxa uu arkayaa nin kale oo meesha fuulaya. Saaxiibkiisa ayuu ka codsanayaa inuu si dhaqso leh meesha ugu soo degto, waxayna isku raacayaan gurigiisa. Tuug kale ayaa u soo noqonaya meesha. Waxa uuna xadayaa boorka ay ku qornayd sayidka aanan la aqoon. Waqtigaasna waxaan arkaynaa dhakhtarka oo jooga guriga keligiisa. Waxa uuna dareemayaa caajis. Wuxuu bilaabayaa inuu hagaajiyo tigiisa, mana awoodaya. Kadibna waxa uu ku garaacaya albaabka kalkaaliyihiisa si uu waqti ula qaato. Kalkaaliyahana marka uu ka furo wuxuuna watay dhar madow. Dhakhtarkana wuxuu weydiinayaa sababta uu wato dhar madow, laakiin kalkaaliyaha uma jawaabayo. Dhakhtarkana wuxuu arkayaa boorka la soo xaday ee ku qornayd sayidka aanan la aqoon. Wuxuu dhakhtarka dhahayaa, ha cabsanin, aniga qofna uma sheegayo. Waxaan dareemay caajis, waxaana go'aansaday inaan adiga ku imaado. Ayadoo la jooga guriga, ninka aanan la aqoon wuxuu la fadhiistay saaxiibkiisa. Waxayna bilaabayaan inay qorsheeyaan sida ay ku soo ceshan karaan lacagta, ayaga oo aanan la qabanin. Sibkiisa wuxuu u soo jeedinayaa inay tuulada oo dhan ay gubaan, dilaana ilaaliyaha. Ninkii aanan la aqoona waxa uu bilaabaya inuu si xun u soo fiiriyo. Wuxuuna dhahayaa, mar kale ha fikirin, aniga oo keliya ayaa maskaxdayda ka shaqaysiinaya. Adigana waxaad ii noqonaysaa murqahayga. Maalinkii xigay markii la gaaray, saaxiibka ninka aanan la aqoon wuxuu bilaabayaa inuu asaga keligiisa shaqeeyo. Waddada ayuu keligiisa istaagayaa, wuxuuna sugayaa wiilka waardiyaha oo wada xoolaha iyo eyga. Wuxuu gaariga ku dhufanayaa eyga wuxuuna ku soo laabanayaa gurigiisa. Dadka magaalada joogayna waxay bilaabayaan inay soo qaataan eygooda, waxayna si dhaqso leh ugu keenayaan dhakhtarka magaalada. Isla markaana dadka waxay bilaabeen inay si xun ula dhaqmaan ninka ilaaliyaha ka ahaa magaalada, maxaa yeelay waxa uu oggolaaday in tuuga uu xado boorka. Timajarahana wuxuu ugu jarayaa kareenka dadka oo dhan ugu jari jiray. Askarigiina wuxuu arkayaa dadkii oo dhan oo bannaanka taagan iyo eyga oo dhulka yaala. Waxa uu si dhaqso leh ugu soo qaadayaa dhakhtarka. Waxa uuna dhahayaa, magaaladan ma jooga dhakhtar xoolaha daaweeyo oo adiga ahayn. Dhakhtarkana wuxuu ka dalbanayaa inuu si dhaqos leh ugu baxo isbitaalka. Dadkii magaalada joogay iyo askariga waxay bilaabeen inay sugaan eyga, halka ilaaliyaha uu bilaabo inuu dilo wiilkiisa. Waxa uuna ku dhahayaa, adiga ayaa waxaas oo dhan ka dambeeyo. Ninkii aanan la aqoonin kor ayuu ka soo fiirinayaa wixii dhacay oo dhan, ilaa markii dambe dhakhtarka uu ka soo baxay qaliinka asaga oo wato eyga oo jajaban oo la kabay. Sidoo kalena ilkihiisa way ay jajabeen. Askarigana wax kale ma danaynayo. Waxa uuna ku farxay in eygu uu caafimaad qabo. Ninka aanan la aqoon wuxuu ku soo laabanayaa guriga. Waxa uuna bilaabay inuu la dagaalamo saaxiibkiisa, maxaa yeelay maskaxdiisa ayuu ka dhaqmay. Saaxiibkiisa waxa uu ku dhahayaa, xal aan midaas ahayn ma haysano. Saaxiibkiisa wuxuu leeyahay, xitaa waad ku guuldaraysatay inaad disho xayawaan. Saaxiibkiisa aad ayuu u farxayaa, waayo waxa uu ka murugaysanaa inuu dilay xayawaan. Wuxuuna u sheegayaa inuusan ku faraxsanayn howlagalka uu samaynayo, uuna rabo inuu ka baxo. Ninkii aanan la aqoona waxa uu dhahayaa, meesha waxa ka dhisan oo dhan waa khuraafaad. Anaga waxaan samaynayna oo dhan waa inaan soo ceshanaa lacagteenna. Isla waqtigaasna, Ibraahim iyo wiilkiisa waxay fadhiyeen gurigooda.
wiilkana aabbihiisa waxa uu ka codsanayaa inuu aado magaalada, uuna safro. Meeshana ma yaalo waxaan sameeyo, cumrigayga iyo dhallinyaranimadayda ayaan ku dayacayaa. Aabbihiisna midaas aad ayay u saamaynaysaa, wuxuuna dareemayaa murugo. Aabbahana wuxuu qarinayaa dareenkiisa, waxa uuna ku dhahayaa, wiilkaygow iska samir. Wax yar kadibna wuxuu rajo ka qabay in roobka uu soo laabto. Maalintii ku xigtayna, aabbaha wuxuu soo kacayaa dadka magaalada joogay oo safraya, wuuna niyad jabayaa. Intaas kadib wuxuu bilaabayaa inuu ducaysto, wayna tukanayaan, waxayna Ilaah ka baryayaan roob. Habeenkiina waxay maqlayaan gugac. Aabbahana wuxuu ku dhahayaa wiilkiisa, Ilaah wuu aqbalay ducadeena. Wiilkana wuu niyad jabsanaa maadaama uusan tuuladan roob ka din 10 sano. Maalintii ku xigtay wuxuu dareemayaa xanaaq, maadaama dadka oo dhan ay aadeen meesha khuraafaadka ku caabudiyeen. Waardiyahana waxa uu joogay meeshiisa asagoo xanaaqsan oo eygiisa la joogin. Marka uu waardiyaha meeshka tago, waxaa imaanaya Ibraahim, waxa uuna bilaabayaa inuu dumiyo meesha. Maxaa yeelay waxay sabab u tahay waxa meesha ka dhacay oo dhan. Maalinkii xigay markii la gaaray, wiilkii Ibraahim wuxuu arkay inuu aabbihiisa uu dhintay. Muruga darteed ayuu wuxuu go'aansanayaa inuu magaaladan uu kaga tago. Inta uusan ka tegin ka hor, waxa uu tegayaa qabriga aabbihiisa, waxa uuna bilaabayaa inuu u duceeyo. Laakiinse wuxuu arkayaa hal mar oo roob ku soo da'aya magaalada, maadaama Ilaah uu ka aqbalay salaada roobdoonka. Kadib habeenkii marka la gaaro waxa uu go'aansayaa inuu qarxiyo meesha dadka khuraafaadka. Bamba ayuu meesha ku duugayaa. Meesha way qarxaysaa. Ninkii aana la aqoon ayaa imaanaya oo helaya boorsadiisa. Wiilkii Ibraahim wuxuu meesha ka dhisaya masjid, waxa uuna ugu magacdaray aabbihiisa. Dadka magaalada joogayna dib ayay ugu soo laabanayaan kadib markii uu ka day roob. Filinkana halkaas ayuu ku dhammaaday. Magaca filinkan waxaa la dhahayaa An Aun Saint.